بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا قيمه بدن لو ومركله iyo barnaamijkeeni mahuraanka muslimka ma la yasi'u almuslimu jahl taharad been ku soo gudo jirnay darsigan korreey waxaan ku soo qaadanay nijaasada waxaan nijaasaa qaabkiisa la iskaga daahirinay marka waxaan filayay in soo fahmo maanta waxaan qaadan doonaa badiya culimada muslimiintu markay ka waramayaan kutubta fiqiga baabu tahara marka halkan la marayo waxay carab baabaanay si gaar ah u sheegaan damul hayd wa nifaas طبعا رجل ما لها حيض النفاس دمر كوكين باهلا دم الحيض والنفاس مركا qaab kale loo tacaamulaya maadaama yihiin laba shay oo nijaasa oo jirkii gabadha ka soo baxay cibaadadeediina saameynta ku leh salaadeedii iyo soomkeedii iyo quraan akhriskeedii ama taabashadii kitaabka iyo dawaafkeediiba maxaa la sameynaya sharcan waa damu dabiicatin wa jibilla yakhruju min qacri raxmi fi awqaatin macluuma xaala sixati almar'ati min gayri sababin wilaada nifaaskana waxaa waa damun yakhruju min almar'ati cinda alwilaada mid wuxuu yimaadaa marka gabadhu ay ilmo dhasho ma ubad dhasho waa damu nifaas damu lxaydna wuxuu yimaadaa waa dami dabiici ah oo ilaahay dumarka ku oo qacriga ama gunta hoose raximka ka soo baxaya awqaad macluum ah tilmaamayana gabadhaas inay tahay gabadh caafimaad qabta sabab wilaadana kuma yimaadee waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay bidaayatu waqti alxayd wa nihaayatu goormuu bilaabmaa gabadha goormuu ku bilaabmaa xaydku goormuuna se ka go-a oo ka istaaga waxaa la yidhaahdaa si guud gabadhu 9 jir markay tahay ilaa laga gaarayo 50 jir waa inta ugu badan ee hesho waa inta u dhaxaysa 41 sanadood waa inta ugu badan hesho حيدك marka waxa yiraahdaa la xayd qabla tamaam 9 siniin xayd ka horeeya 9 sanadood ma jiro gabadhu 9 jir way ku heli kartaa laakiin 7 jir iyo 6 jir iyo 5 jir toona ku heli karmayso sababtaas inuu gadaal ka tilmaami doono xaydku waa calaamad tilmaamaysa qaangaadhnimo in gabadhaas qaangaad gabadh kasto caadada hesha waa gabadh qaangaadhay kamana sugnaan waqtiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam gabadh xayday Aisha radiyallahu anha waxay tiri ida balaqat aljariyatu 9 siniin fa hiya imra'a hadii gabadhu ay 9 jir gaadho waa gabadh almacna way qaangaadhay wala xayd bacda 50 السنة في الغالب على الصحيح كنت سنادود إن كبدنا قبل ما هشوا عادة لكن وهلي كرتا لكن وسيد غالب مركا حد كيدين وحي كبحثون حيدك عدم مدة ويا رجال عادة هلي كرتو يمدة وجبدن سيد السحبة متشرتو حد لوراني حد كاسوغير يحد كاسوغ بدن لكن وحلو علني يا عادة يعرفك بالشوين كاسي وحلقة بالشو ميل كنول أيا دمر كوجو وحي هلان عادة شن عشو إلا تضوع عشو طبعا عشو قاركودنا حيلان هل مالين قاركودنا حيلان بلقى شن يطبعا عشو بشي مركو يكون كردوي غالب الحيد سيدا غالب كا إن قبض حيدا 6 إلى 7 معلومات مركا كقبض أنت حيدا كدي واحد كمرنسا مركاسي تكنسا 24 يوما أو 23 يوما دوري لا تنك معلومات هاي مركا ساسة مركا قبض ولا تعاملسا وغالب لكن ما هو من دليل شيء أما النص شيء أو اللي هالك اللي موجود بكرة لما نلا فكرة هذا قبض مركي عادة هشوا قبض مركي عادة هشوا أما حالته نفاس كجرت وقت النفاس وحيابح جرت حارانك إن يد سميسو أما أيوة السميان عتكلا كو وحا الوضع في الفرج إن قبل وح معاملة أما تعامل ودحمره نكيدي حلاش هو إله بس سبحانه وتعالى إن فروح إليه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر تمر كي كده هذا حالات ضاي حيث كشران وهود أواننا إلا كظاهروا بيا ضد بدنا وحل الشيء تمر كوجو تجي حالات ضاي عادة هلاين كلنا كل ما يحنون أنا مددر كالسواقس مركي إله سبحانه وتعالى يسجين وجوجل بدن كحالة داسي قبل كحاران إن قبل وح معاملة نكذي ودحمر رسولكم صلى الله عليه وسلم وكينا لها اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع وحول بصماء مقدمات الجماع لكن نكاح أما قل مدن سكيل هذه قبل كلام هذا حارانته والطلاق قبل يدو حالة عادة كشرته إن لفره وحاران فطلقوهن العدتين مركا وحجرته وحنا الطلاق السني يا طلاق البدعي مركا حالة قبل عادة كشرته دين إنك وفره وطلاق بدعي يسمي إثم يدن بي وكل حاجة مركا إن قبل يسوع عشدو قبل ما كي عادة كظاهر ودو أي كم يرتو يسوون أقلمون أما واحد جماعة دحمر يدين كيدي إن حالة يدا وفره قبل كاستحالة حاران تكاينا والصلاة مركا قبل يدي عادة إلى هذه أما نفاس لهذه وحساد ملها قلب كأفراد والصوم كيدنا ده كمان صحي صوم كي صلاة وسكميت طوافكي يدنا وده سين هروق قصة شكل باب الطهارة بيوجيبه وعباده هذا الكون كبرناي صلاة هذا الكون كبرناي مركا يدنا ما بنانا قراءة القرآن وقول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين وبعده مركا سيد الصواب كقبله آخرين كرتا لكن كتابك مصحف كي ما تابن كرت وآخرين كرتا لكن كتابك ما تابن كرتو
sababta waa maray iyadoo dhiganayso maray dhigaso iyo maray ilaahay subxaanahu watacaala ugu cibaadaysanayso ka qofka muslimkiina ma nijaasoobay waxa kale in kamid qodobka sideedaad dukhul almasjid wa lubtha fihi in gabadhi masaajidka gasho kuna sugnaato yadama ka xana sidii ninka junubka ama jinaabada qabay aynu ka soo sheekeynay haddaba muxuu keensanayaa marka gabadha caado hesho maxaa ka dhalanaya oo waajib noqonaya kow yuujib alqusl inay gabadha meedhato ayuu keensanaya laba albuluuq inay gabadhaasi qaan gaadho way keensanaysaa oo cibaadooyinkii qofku markuu qaan gaadho laga doonayay ayaa qofkaasi laga helaya saddex al-i'tidaadu bih waa in shay la tirsado uu noqdo oo dee ciddadii furiinka la xidhiidhay ayaa waxay ku xidhan tahay dalaaqi وكما كان إلهي لها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاث حيض وصدح حيض أي قبل ترسنة مركا عادي هاتي قبل هشو حيابها مركا بكر لنا يلقوا حساب تميو أي كميتي قلب كافرات واتشبين أيو حيض كحويان قبل هدي أي عادي هشو وحي كده جنتي معني ذي حويان رحم كيدي وبري أموامد أن لهين وحقوري إنه كتشرو رحم كيدي مركا إنها سنكسو قبيننا الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبالله التوفيق.